magaalada Garowe iyo guud ahaan Puntland waxa ka socdo wax sax maaha waa dulmi waa cadaalad darro waa beegsi waa xasaarad dagaal oo toos oo la abuurayo weeye wax saxna maaha in qofka ka aragti duwan aad beegsato siyaasiga beegsato saraakiisha xabadayso wariyaasha xabsiyada ku ururiso waxa lagu yaqaanaa qof sii socda oo tagay madaxweyne tagay regime tagay oo waqtigoodii dhamaaday ayaa dabeecadaha horta noocaas lagu yaqaanaa dani waxa uu wada wax sax maaha magaalada Garowe waxa ka taaganna waxay sabab u noqon doontaa in faraha si fiican la iskula galo war soo dhawaad saaxiibayaal waxaan rabaa inaan muuqaalkan idin kula wadaago xogii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay Puntland dhaqaaqyada siyaasadeed iyo midka waliba ciidan ee ka taagan magaalada Garowe iyo guud ahaan Puntland shirarkii Saciid Cabdullaahi Dani uu xalay ilaa iyo maanta uu la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo waliba siyaasiyiinta ku safka ah ee dhuwaaleed ee ka dhacay madaxtooyada magaalada Garowe tagitaankii taliyaha qaybta 54 ee ciidanka xoogga Soomaaliyeed General Jamcaale Jaamac Takar oo isagana xalay gaaray magaalada Garowe waxyaabaha uu qabsoomay iyo waliba odayaasha gobolka Mudug xaalad adag oo halkaas ka taagan maamulka gobolka Mudug oo mamnuucay in hoteelada aan lagu qaban karin shirar siyaasadeed iyadoo odayaal doonayay in xaaladda halka ka taagan ay ka hadlaan laga mamnuucay isku imaansho iyo waliba inay shir halkaas ku yeeshaan xaalad cakirnaana oo gobolkaasi Mudug ka taagan ayaan soo qaadan doonaa haddii alla ima guud ahaan Puntland ayaa muuqaalkan ku qaadaa dhigi doonaa waxyaabaha qabsoomay ficilada taagan weerarkii taliya ee Corneyl Qaasim Geel oo isagana lagu weeraray duleedka magaalada Garowe xilli magaalada Garowe uu soo socday sababaha loo weeraray iyo waliba jeelka dhexe ee magaalada Garowe oo wali uu ku jiro iyo sababta halkaas uu ugu xiran yahay ayaa soo qaadan doona dhaqaaqyada ciidan ee dabcan laga dareemayo duleedka magaalada Garowe oo iyadu noqotay mid ugu xoogan ayaan iyadana dhinacyo kala duwan ka dul istaagi doona ismada dhaqanka ugu waaweyn gobolka Nugaal ayaa iyadana soo qaadan doona iyo go'aanada siyaasadeed ee ay qaateen soo dhawaada idinkuna aragtidina ula wadaaga qaybta commentiga waayahay aan ku bilaabay xalay magaalada Garowe horta waxa gaaray taliye General Jamcaale Jaamac Takar oo dawladda federaalku maalmo ka hor ay u magacawday taliyaha qaybta 54 ee ciidanka xoogga Soomaaliyeed booto ma imaan karo ma soo degi karo sidaan ma yeeli karo magaalada Garowe horta waa lagu kala adkaaday mar haddii talaabadii ugu horeysay lagaga adkaaday oo asagoo ciidamo wato General Jamcaale oo la lahaa car soo gal madaxan ka jarayna isagoo tiknikadiisa wata magaalada intuu tartiib u soo galay uu soo kordegay soo dhex galay guryihiisa imaaday saldhigyadiisa soo degay taasi waxay horta ka turjumaysaa magaalada la iskugu bootayn karo oo Dani iyo waliba Jamcaale ay iskugu bootayn karaan horta ma horeyna waan idin kula wadaagay General Jamcaale marka xalay waa imaaday si nabadgelyo ku imaaday cid hor istaagtay ma jiro cidu isaguna wax u dhimay ma jiro horeyna waan idin kula wadaagayo ciidanka waa ciidan xoogga Soomaaliyeed way looma dhisin dumin looma dhisin qixin shacab looma dhisin in magaalo amni ay burburiyaan waxa loo dhisay inay ilaaliyaan astaanta qarannimo ee xoogga Soomaaliyeed nin kastoo imaadana generalkaas inta uu nool yahay waa la shaqeynaya khilaaf waa imaan kara laakiin ku kasta oo federaal oo imaada waa ku qasban yahay inuu la shaqeeyo waa taliye xoog Soomaaliyeed way ninka horta maaha ciidan darawisheed oo ama ciidan qabiil ma aha Suudani hadalka u dhigayo ma aha horta nimankaas hore bay ballan qaadeen oo waxay dhawrana ciidan qaran baa nahay Dani Duulaan kuma nihin waa madaxweynaha nagi Puntland si kastoo u kala aragti duwanahayna annagu waxaan ilaalinaynaa anshaxa qarannimada Soomaaliyeed ayaan ilaalinaynaa Duulaanba kuma nihin ee ninkaas aayaro ha isdejiya baa leeyahay oo dhibaatada iyo dulmiga iyo weerarka ha iska daayo General Jamcaale marka magaaladu imaaday saldhigiisii buu iska aaday ciidankiisii hawlihiisii shaqo ayuuna horay ka galay oo ilaa hadda uu ku jiraa waxaa la soo bandhigay muuqaalo isaga oo magaalada bartankeeda tabash oo hareerihiisa wiilal jaljalaqsan oo tababaran ay waxa weeye yaacayaan hortiisa iyo gadaashiisa iyo hareerihiisaba ilaa waa general nin ciyaar ma ahe intaasi ka soo tag Saciid Cabdullaahi Dani xaaladda markuu arkay kulamo ayuu la yeeshay odayaasha dhaqanka naftirkiisu ma xuma inaad tabartaada iyo taagtaada iyo xaaladaada aad qiimayso ood ku ekaato way fiicanta
inaad jawiga taagan aad eegto ood xaqiiqada aad ka qabsatana way fiicanta. Saciid Cabdulaahi Deni markuu xaaladda eegay wuxuu abbaaray in odayaashii dhaqanka uu iskugu yeedho. Odayaashii dhaqanka wuxuu ka sugayay inay warbaahinta intay istaagaan ay dhahaan nimanka in la laayo waa jihaad, halala dagaalamo. arrintaa ma dhicin. odayaashii nugaaleed waa odayaal arrimaha siyaasadda aad ugu dhuntaleela, ma aha dadka dhegta wax loogu shubo. nugaal markii laga hadlayo waa dad xalaariya oo siyaasi ah oo odayaasha culimadiinka iyo dadka kaleba siyaasadda aad bay u yaqaanaan. waa dad siyaasad maala weeye, ka awow siyaasad maal weeye. xataa ninka baadiyaha jooga waa iska siyaasi. nimankaas marka waxaa la yidhi soo dhawow. ciidankan waa ciidan qaran. ciidankan waa ciidan qaran. heer federaal bay ka amar qaataan. weerarku maaha damaanad annaga qaadayna inaysan ku soo weerarayn. adigu damaanad ma kaa heli karaan inaada weerarayn. Deni waa raftay wuxuu yidhi maya, anigu wuxuu weerari mahaya hayga guuraanoo kala bayr ha u guuraan oo halkaa ha tagaan. odayaashu waxaa la yidhi maya, Janaal Jimcaale halkan ka guuri maayo. magaaladiisuu deganaan, guryihiisuu deganaan, duurka cidlada uga guuray, kumana soo weerarayo. annagaa damaanad ka qaaday, annagaa damaanad kaaga hayna inuu kusoo weerarayn. adigu tartiibtaada ma u joogi kartaa? wixii laguu idmaday ee laguu doortay ma hayn kartaa, ma wadi kartaa? Deni marka kulamadii buu badinayaa. maanta ugu dambeysay madaxtooyada shir baa ka socda oo looga areensanayaa xaaladda amni. guddi la saaray baa jiray oo gobolka Nugaala. guddigaas la saaray waxay kasoo tala bixinayeen saraakiishaas oo ay la kulmeen ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo Deni oo ay la soo kulmeen ayay aragtiyahooda soo dhageysteen. kadibna Deni bay kula soo noqdeen. hadda marka la gorfaynaya waxyaabihii ay la soo kulmeen ee dambe ee lagu soo heshiiyey, iyadoo heshiiskaas ay socdo oo guddi loo xil saaray, baa haddana Deni wuxuu wadaa beegsi ah inuusan qof ka aragti duwan uusan dhaafin. tusaale, shalay waxaa la weeraray oo la xabadeeyey oo weliba la qabhay oo la ilhaanaystay oo foolxumo lagu sameeyey Corneyl Qaasim Geel oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee reer Puntland. ninkaas Deni buu ku saf ahaa, laakiin Deni baa waxaa weeye albaabada ka xidhay. kadib wuxuu iskaga laabtay ciidankan Janaal Jimcaale buu iskaga laabtay. ilaa sarkaal Soomaaliyeed buu ahaay. sarkaalkii marka halkaa ku laabtay isagoo soo socdo baa waxaa weeye dhexda loo galay. arbaa rasaas ooda looga qaaday. waa la qabtay jeelka dhexe Garow ayaa la geeyey. ilaa hadda waa xidhay. muxuu xidhan yahay? maxaad iga aragti duwanaatay? haddaan anigu kaa aamusay maxaad iskaga fadhin weyde? maxaad iskaga gaajoon weyde? maxaad u baahan weyde? maxaad federaal wax ugu doonatay? maxaad federaal ilaa wax la qabanaya ma lehe. ninka hadda Garow wajow muxuu qabanaya? ilaahay baa inagu dhaariyey. ciidanka dowladdu ay halkaa mishaarka ku siinaysa iska fadhiya Garow maxaa laga waardiyey? wax laga waardiyeeyaba ma lehe. hadday dhalinyaradu ilaahay intuu dowladdii dhinac uga jeediyey aan dabka lagu shubinoo ay halkooda iska joogaan, maxaa dhacaya oo mishaarkooda ay iska qaataan? maxaad u noolaanaysaan? halkaas waxaad marisaan u hesheen. maxaad u xariiftanteenood meelo kale u wacateen buu Deni ku laynaya. Deni Garowwadii quruxda badnayd ee siyaasiga ahayd ee xadaariga ahayd, foolxumo iyo wuxuu ku wadaa in lagu kala yaaco lagu kala qaxo. waa wadada hadda uu socdo. maanta ugu dambeysay wariyaashii wax duubaya xataa waa dhaafilay. wariya Suweyd Gaaceyte baa la xidhay oo xidhan. Suweyd baa xidhan. Suweyd waa gabar yar oo wax duubta wey. way xidhan tahay, maanta la xidhay. gudoomiyihii gobolka haweenkii maalin dhaweyd hadlay, soo xidhxidh baa la yidhi. food ciro ninka la yidhahdo xidhxidh baa la yidhi. haweenka oo qaqabo haweenkii baa la raadinaya. hadda maalin dhaweyd hadla haweenkii oo dhuumaalaysanaya. ba ilaahay baan inagu dhaariyey. maxaa diidaya ragga marka ninka ragga waxaa la yidhi cadaab buu ka doortay. maxaa diidaya wiilashaas dhaxda wada xidhan, wada BKM-ka wata suuga iyo bahalkii waxaa weeye gawaarida cabdibilayaasha dheereeye wada saliidu ka difqayso cusaybka wada watay qoryuhu u saaran yihiin inay kula soo dhaqaaqaan oo iska kaceliyaan. maxaa diiday? haddaad adiga qutuqudaynayso, tataabanayso, kolba meel ka waxaynayso, haweenka u doomanayso, caruurta u doomanayso, kuwa la shaqaynaya u doomanayso, maxaa diidaya in la islaayo? dagaalka Garowa ka dhacaya Deni baa mas-uulka. waxa Puntland ka socdana Deni baa mas-uulka ah. dadka reer Puntland oo horta taa qaata. intaa waxaa sii dheer gobolka Mudug xaalad cakiran baa ka taagan. Mudug odayaashu waa hadleen. madaxweynihii maana arag baa le waa weyne meeluu aaday. waa qodob.
wasiiradiina albaabada naga xidheen baa layidhi sidaa haddii la sameeyey annagu maxaan samaynaa baa layidhi dadku ciddan la soo hadashay aadaynaa bay dhaheen odayaasha hadle ciddan la soo hadasho bay u dhagan uglaanayaan oy raacayaan madaxweynihii ma hayno waxa weye wasiiradiina albaabaday naga xidheen waxba nooma soo maxaan samaynaa baa layidhi annaga mudug odayaashii dhaqanka siyaasiyiintii mucaarad muxaafid in yar oo gudoomiyaha gobolka iyo keliya baa dani la shaqaynaysa toos dhalinyaradii iyo macal ciidankii dowladda federaalka raaceen maanta amar buu soo saaray maamulkii gobolka mudug waxay sheegeen kow inaan shir siyaasadeed lagu qaban karin hoteeladii baa amar la siiyey ma qaban kartaan hoteeladiina laguma qaban karo la iskuguma imaan karo ma samayn kartaan waa qodob laba dhaqdhaqaaq aan dani tiisa ahayn lagama dareemi karo ayadana foodaa la iskula jiraan xilli kasta xabaddu way dhici kartaa mudugna ma kala qaybsana ogaadaya mudug markaa inaleeyahay mudug gobolka mudug ma kala qaybsano gobolka mudug 95% waxay raaceen dowladda federaalka xasan baa teleefonka uga baxay nin baa le xasan oday hebelaw horta meeshan xasan waa ku magacaabaynaa rag baa horta meeshan ka shaqaysanay dad baa meeshan ka shaqaysanay koox dhan oo reer Puntland oo dowladda federaalka ku matasha ayaa horta meesha joogtay oo weliba ka maskax badan ka energy badan ka daayar ka waxa way ka aqoon badan Saciid Cabdullaahi Deni taliyaha nabad sugid taliyaha boolis ciidanka boolis Soomaaliyeed Asad Yano xildhibaano senataro wasiiro saraakiil kale ayaa horta meesha ka shaqaysanay arbaa saa la iskula soo hadlayaa saa waa la isla soo hadlayaa daqiiqad ayaa la iskula soo hadlayo laleeyahay waryahaye maxaad haysaa ciidan qor aad u soo horshay jufada hebel ma tidahaa 200 baan ka rabnaa jufa hebel 3 baan ka rabnaa jufa hebel 2 baan ka rabnaa jufa saraakiishaas aad leedihiin adiga sargaal baad leedihiin idinka sargaal hadduun meeshana loo soo dhigay lacagtuna dee teleefonkay ugu wada jirtaa war way noolaadeenba siyaasadan isqa qabsiga Puntland iyo federaalka wayba ka noolaadeenba dadka reer Puntland way ka noolaadeen runta idin sheegaya Saciid Cabdullaahi Deni dadkii cunuhu ku dhagayo baahi ayaa ka usii xataa kala shaqeynaya inuu cararo yaa qarka u saaran marka gobolka mudug 95% dowladda federaalka ay raaceen Puntland guud ahaanna waa sida runta markaan ka hadalno Deni wuxuu arkay soo meel cidla fadhiya koox yar oo la shaqeynaysa oo xilal ku magacaaban oo kaliya hareeraha ka taagan iyo carruurtay dhaleen wax kale oo meesha jooga male waynu eegi doonaa dhaqaaq baa socda maalmaha ugu soo aadanna dhinac baa u dhici doontaa baashu la iskuma sii dhafnaan doono la ismana sii garab joogi doono ama sida lafta gareembo Deni wuxuu noqon doonaa nin banaankaas oo dibad wareega oo ciidamo duurka ku haysta ama wuxuu noqon doonaa nin la qabtay oo jeebaysan wax kale Puntland kuma socoto waynu eegi doonaa wixii ka soo kordha hadwaaleyn